ciidani ciidaha waa ka duwaneyd ciidahani ciidii hore waa ka duwanaa ciidii hore waa ka duwaneyd anigu maanta waxaan ku ciiday gurigeyga Stockholm waxaa lagu ciiday gambasho To the best beautiful people aad baan idin salaamaya ciid wanaagsan adduunku meel baa ka wada joogtaan waxaan rajaynaa inaad farxad ku wada ciideen halkiin waxa laga yaabaa inaad wada filaysaan habka anaga aan ku ciidnay especially dadkeena joogo Sweden gaar ahaan Stockholm marka timaado Stockholm waxa haysanaa fursado aysan haysan dadka qaar ku nool wadamada qaar kuwaasoo lockdown ku jiraan ciidna waa taqaanaa waa maalin farxadeed haddaba habkee ku ciidnay sidee ku ciidnay aniga iyo asxaab igu qaaliye inkastoo aniga markaan nafsadeeda ka hadlo aan ku soo ciiday gelinkii hore gurigeyga markii laga soo tagayna galabtii aan waqti aad iyo aad u qurux badan aan ku wada qaadanay aniga asxaabtay kulliitaba aniga hadaa idin dhaho saas u soo ciiday aniga u go'an tahay asxaabtayda ayagana sidee ku soo wada ciideen qof walbo soo ku soo ciiday ayuu naga siinaya fikirkiisa so let's go to the asxaabtayda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإسلام يا دمانتنا ستوكهولم وحلو عيد جنبشو أنا قد بنان كان شغلنا بنان كعيدنا رجواز قد يا رجنا واقلن قشة فرحة وفري بان لي هاي كل عام وأنتم بخير بسم الله الرحمن الرحيم عيد ونكسن كل عام وأنتم بخير ciidani ciidaha waa ka duwaneyd corona baa jiray waa la kala ciiday la isma salaami karo la iskuma imaan karo waa ciid runtii adduunka isleeyahay inay taariikh ay reebayso laga shakeyn doono laakiin annaka iyo asxaabteena waxa isku dayeynaa inaa ciidihii hore sida u ciidnayo kala axoogaa soo dhaweyno ciid wanaagsan bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu aniga sidaan ku ciiday aniga gurigeyga ayaan ku ciiday reerkayga ayaan la ciiday kadib dibadda ayaan u soo baxay maadaama ay tahay maalin samar ah oo qorax fiicanna leh asxaab yar ayaan la kulmay halkan Sweden social distance ayaa ka jira laakiin lockdown kama jiro meelaha qaarkood way noo furan yihiin kafeeyaasha noo furan laakiin dad badan iskuma imaan karaan xadidaad yar ayaa iska jira farxad yar baan soo qaatay waqti fiicanna waa soo qaatay ciidahani ciidii hore waa ka duwanaa sida dhammaan ogtihiin aaladaha jiro iyo cuduradaaniti masaajidadii ayaa naga xiran meelihii aan ku cibaadeysan jirnay aan dadka kula kulmi jirnay laakiin iyadoo saas tahay kulli shay khayr farxad ayaan ku soo qaadanay waxaan halkan u dirayaa salaan عالم الإسلام كل عام وأنتم بخير إذا كصوماليات كل وحين ليهاي عيد ونكسر أنا عيدي هره waa ka dubneed sababtoo ah maxaa la dhahaa maadaama la kala ciiday dadna sabtigii ciideen dadna axadii maanta ciideen oo wadanka adduunkana ka jira cudurkaas hadda socdo wax weyn ugu dubneed asxaabta qaaliga ah ciid mubaarak meel ba adduunka ka joogtaan anigu maanta waxaan ku ciiday gurigeyga alxamdulillaah salaadba sida ku qabata lagu tukadaa marka ilaahay ha aqbalo ciidadii kale ilaahay bashwash iyo barwaaqo dhamaantaan hana wada gaarsiiyo aad baa u salaamantiin salaam calaykum habina soo wada aragtay asxaabteedii soo wada ciideen waxaan idin leenahay ciid wanaagsan meel baa wada joogtaan farxad ku wada ciido ilaahay ciideeda caafimaad hana ugu gaarsiiyo aad baan u mahadsantiin and thank you for watching see you the next episode my beautiful people